halkan waxaan imanka idin sheegay oo kale waxa jira Soomaaliland wax la sameeyay nin la yiraahdo Amil ee safir looga dhigay Addis Ababa Soomaaliya waxa weeye madaxweyne ku-xigeenkii hore Puntland Garoweland ninkaas waxa meesha loo geeyay Soomaaliland oo qaso in Soomaaliland ka sameeyo jarjaro shalay wuxuu la fariistay isaga wuxuu ku casuumay ninkii uu qaabsanaa Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadaladeeda Turkiga ah iyo wuxuu isku geeyay marka ninka la yiraahdo dooba daarood bam soo daaroodka waxa halka laga wadaa in la sameeyo wax la yiraahdo magaalada Said Makhri State oo ah Sanaag iyo Khatuma oo ah Saudi Sanaag iyo Cayn taasaa imaka iiga laga soo ansixinaya horena wuxuu casuumay ugaas Cabdirashiid ugaaska Samaroonka iyo Sultan Saciid sayda maasha baran ayuu ku casuumay iyo Fahad Yaasin shulay Afrika weekend yani waxa saynagu socda in Soomaaliland sida Soomaaliya loo jarjaro oo laga dhigo dawlad goboleed aan jirino fantasy laakiin fantasy uu suurtageliya haddana inagu aynu beeneen waxa suurtagal aan ahayn waxaas waxay naga qaranaya murankeena gudaha ayaa aan ku noqonay biro ku baay aan ku baxsanay waxay la tahay aynu ka qaadno madaxa kor u qaadno masixii dibadda waxaynu ka maqanahay international eerihi meel arrimaha Soomaaliya lagu wado waan ka maqanahay saaxiib qoro warkada ilaa ma haysano adduunka ma haysano inaga waa isku meeraysanayna marka waxa taas waxa leeyahay dhalinyartiina waa awareness ka waan ogaataan inta isku maqlay in la inta isku maqlay wala nagu maqlay inagana marka waa inuu kala tagnaa inuu daaro anagu insha Allah taala waxaan doonayaa doorasho waydiin dan dalka waa wadan dawladdu waa wadan oo magacay ku helaysaa wada qoladan xilqaamtay baan sugayna insha Allah taala laakiin waxay noo mid inaan sharciga ilaashano haddaan sharciga lagu socon ummaddu isma qabsan haddaan ka traffic aan soo baawdo isma jeedeen inaan sharciga la leeyahay waa codkiina waa la maqla meesha waxa ka macna waa codkiina codka dhalinyarada weeye waxa leenahay qabiilka iska daaya qabiilka waa inaynu nationality abuurnaa qowmiyad isku abuurnaa calankan markaanu xafladaha leenahay la leeyahay calankii Soomaaliya loo kaco iskuulada laga bilaabo iskuulada hadii waxaan qoyaa calan xaflad ma noqonayno waa inaynu dadku ku abuurnaa qowmiyad ku abuurnaa insha Allah taala doorashada oo dhicdo dad wanaagsan oo soo bixi doona anu taasna ka shaqeynay doorashada oo dhacdo dad wanaagsan oo soo qofkii uu ceebsadowna dawladda meesha tigisa